Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kusoo dhawaada Pro Production Challenge Everything. Waana anigoo ah Abdiwali Maxamed Abuukar. Waa meesha aad ka barataan barashada kombiyuutarka sidoo kale multimedia. Pro Production cashirkan waxaan ku baran doonaa sidee baa light mode aad ugu dhigi kartaa dark mode adigoo isticmaalayo Windows 10. Sababtan dark mode ugu dhigayno waxay tahay si hadhow kombiyuutarka markaad isticmaalayso uusan damage ama dhibaato kaaga gaarsiinin indhahaaga ama aragtidaada. Ugu horreyn inta aadan muuqaal ka kuurgalin waxaa muhiim ah inaad ogaato operating systemka aad isticmaalayso inuu yahay Windows 10 versionka ugu dambeeyay oo ka soo bilowdo 1903 ama 1909 balse anaga cashirkeena waxaan ku qaadan doonaa 1909. ugu horreyn waan kaaga mahad celinaynaa inaad nagu soo booqatay channeladeena haddii uu ahaan lahaa barta YouTube-ka ama barta Facebook-ka adigoo si toos ah inoola socda cashirada aan soo dhigno. Waxaan kugu tilmaamaynaa inaad tahay qof aad u wanaagsan. Maxaa inoo diiday inaad inoo saarto subscribe-ka sidoo kale aad saarto like-ga. hana ka iloobin inaad saarto gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaa soo dhigno. waanu kaaga mahad celinaynaa aanu bilowno cashirka. ugu dambeyn waxaad joogtaa desktop-ka. inta aadan shaqada bilaabin waxaad u baahan tahay in aad ogaato operating systemka aad isticmaalayso ama Windows-ka aad isticmaalayso. haddii ay dhacdo anagoo shaqadii wadno operating systemkaaga in uu lahaan waayo waxaad u baahan tahay in operating systemkaaga aad u dirto update. sidee ku ogaan kartaa kombiyuutarkaaga operating systemka ku shuban? si aad u ogaato waxaad kicisaa start menu-ga kadibna waxaad ka doorataa calaamadda gariiga ah ama calaamadaas aadka u wareegan ee lagu magacaabo settings. marka aad settings kale ku siiso waxaa kuu soo furmaya dialog box kaasoo lagu magacaabo Windows Setting. inta badan Windows 7ka waxaa lagu yaqaanay inuu ku soo baxayo control panel balse aniga hadda waxaan isticmaalayno waa Windows 10. Windows 10ka waxa uu ku tusayaa laba qaab, Windows Setting iyo control panel labadaba, balse iyadoo ay ku kala duwan yihiin laba features. balse aniga hadda waxaan isticmaalaynaa Windows Setting. marka uu sida tan kuugu soo kaco gacantaada bidix waxaa ku arkaysaa midka ugu horeeya inay ku qoran tahay system marka aad kale ku siiso waxaad arkaysaa gacantaada bidix inuu ku qoran yahay display, sound notification iyo waxyaalo kale badan. balse anaga waxaan u baahanahay in aan ka doorano meesha ah about ee ah midka ugu hooseeya. klik ayaad ku siinaysaa isla markiiba waxaa arkaysaa kombiyuutarkaaga waxa uu ku salaysan yahay. qaybta ugu hooseysa waxaad ka arkaysaa in uu ku qoran yahay Windows specification. specification-ka markii aad aragto qaybtiisa hoose waxaad ka raadinaysaa in uu ku qoran yahay edition. waxaad arkaysaa inuu inoogu jiro operating systemka Windows 10 oo ah Pro, versionkiisuna yahay 1909, installingkana uu yahay 1/23 ama Janaayo 23keeda 2020 oo laga wado 2020. build-ga inoogu install garaysan waa 183.3.592. haddii operating systemkaaga uu intaan yahay waxaad ogaataa kombiyuutarkaaga iyo waxa aan anaga hadda rabnay inaan ka qabano kombiyuutarka in ay isku mid noqonayaan. haddii ay dhacday inaad u baahan tahay update, sidee baa update-ka ugu diraysaa? tusaale ahaan waxaa dhici karta operating systemka kugu jira in uu yahay 19.3. sidee baad ugu diraysaa update? waxaad tagaysaa meesha ugu horeeyo calaamadda start menu-ga. ugu horreyn kan iska xir. waxaad tagaysaa calaamadda start menu-ga kadibna waxaad dooranaysaa calaamadda gearka ah ee inoogu magacaawneed setting. klik marka aad ku siiso waxay noo soo baxayo Windows Setting. kadibna halkan waxaad ka arkaysaa midka ugu hooseeyo in ay ku qoran tahay update and security. update and security ayaa klik ku siinaysaa. waxaa kuu soo baxayo dialog box cusub. dialog box-kaas oo laga rabo inaad u dirto kombiyuutarkaaga update haddii uu ahaan lahaa driver, haddii uu ahaan lahaa kombiyuutarka waxyaalaha u baahan yahay sida SM BIOS. ugu horreyn waxaad arkaysaa hadda anaga update-ka ugu dambeeyay inaan u dirnay. maanta update-ka ugu dambeeyay waxaan u dirnay 7 saac oo dhiman 15 daqiiqo. kadib waxaad leedahay check for update. update markaad aragto oo aad update garayso waxay ku xiran tahay internetka aad isticmaalayso awoodiisa.
haddii ay dhacdo internetka aad isticmaalayso inay awoodiisa high tahay waxaad arkaysaa isla markiiba in uu updateska kuu bilaabayo waa haddii uu kombiyuutarkaaga u baahan yahay update anaga haddeertaan kombiyuutarkeena uma baahna update haddii ugu badatana hal shay ayuu ka soo helay midaasoo ah Win Defender okay waan iska xiraynaa uma baahnin sababtoo ah shaqada way inoo sii soconaysaa si aad u bedesho kombiyuutarkaaga customize aad ugu samaysato desktopka adigoo joogo ayaad waxaad leedahay right click markaad tiraahdo waxa ugu hooseeya aad arkaysaa personalize ka aad kale ku siinaysaa waxa kuu soo furmaayo dialog box gacantaada bidix waxa ku arkaysaa inuu noo yaalo dhowr tabs midka koowaad ee lagu magacaabo background waxa inoogu xigi doono color waxa inoogu xigi doono log ilaa iyo meesha ugu hooseyso ee taskbarka aan u tagi doono aan ku bilaawno backgroundka markaad sidatan u doorato waxaad arkaysaa halkan inuu inoogu qoran yahay background tusaale ahaan markaan halkan qabto aan halkan keeno haddii ay dhacday inaan doorto midkan waxaad arkaysaa wallpaperkayga inuu automatically isbedelayo iskuna bedelayo midkii aan anigu doorto haddii aan doorto midkan waxaad arkaysaa inuu wallpaperkii isbedelayo qasab ma ahan inaad isticmaasho midka uu wato Windowska kuwan dhan waa mid default ku ah operating systemka ama ku yimaado Windowska aad markaas isticmaalayso balse waxaad awood u leedahay inaad adiga mid alaala midkii aad u baahan tahay inaad saaran karto si aad u saarato halkan waxaad arkaysaa inuu inoogu qoran yahay backgroundka meeshan waxaad ku arkaysaa inuu inoogu qoran yahay picture waxaa dhici karta inuu waxyaalo badan sida halkan oo kale kaaga soo baxayo inuu kaaga soo baxo ama midkood mid kamid inuu kuu dooran yahay haddii ay dhacdo inuu kuu dooran yahay solid oo ah color caadi iska ah balse dooro oo ku bedel picture si aad u saarato sawirkii aad u baahan tahay kadibna halkan waxaad ku arkaysaa inuu inoogu qoran yahay browse ayaan kale ku siinayna browse-kan oo kuu sheegaya destinationka ama meeshii oo feelasha ku yaalay ama wallpaperkii aad rabtay inaad isticmaasho oo aad rabtay inaad saarto desktopkaaga halkii uu ku yaalay anaga wuxuu inoo yaalaa si adiga waxaad dhici karto inuu meelo kale ku yaalo waxaan furaynaa my picture qasab ma ahan meesha aniga ka raadinaya inaad adiga ka raadiso sidoo kale meeshan aniga dhiganayna inaad adiga dhigato balse aniga mar walba waxaan jeclahay meesha uu kombiyuutarka aanan wax sawir laga tiri karin in aan saarto anaga hadda wuxuu inoogu jiraa hard diskiga ee local C-ga ah double click ayaad siinaysaa kadibna waxaad dooranaysaa wallpaperkii markaas aad u baahan tahay in aad saarato desktopkaaga anaga waxaan dooranaynaa intaan sawir mid ka mid ah midkan ayaan dooranaynaa oo anagoo click siinayna kadibna waxaan dooranaynaa choice picture marka aad dooratid haddii aan aadna desktopka waxaad arkaysaa inuu inoo koray sawirkii ee aan markaas anaga soo dooranay kadib maxaa inoo haray waxaa inoo haray halkan waxaad arkaysaa juice fit halkaana marka aad furtan waxaa ka arkaysaa waxyaalo badan waxaa dhici karta kombiyuutarkaaga inuu kuu dooran yahay stretch tusaale ahaan haddii ay dhacday inuu inoo dooran yahay stretch maxaa isbedeli kara waxaa isbedeli kara haddii aan halkan geeyo aan furo meeshan ay ku qoran tahay juice fit kadibna aan doorto stretch sawirka si fiican u fiiri waxaad arkaysaa sawirka inuu noqday shay ballaaran tusaale ahaan markii aan ka soo qaadna dhinaca Photoshopka marka la isticmaalayo 18 haddii aad shiftiga aadan la qabanin sawirka inuu ka baxayo geesaha ama uu noqonayo wax balbalaara oo geesaha ka baxaya ama wax fidsan balse anaga joyce-ka waxaan ka dhiganaynaa inaan furno halkan kadibna aan ka doorano fill kaas oo sawirka inooga dhigayo mid aad u qurxoon waxaan filayaa halkan waxa inoogu dhamaaday qaybta koowaad oo ah background waxa inoo soo haray qaybta ah colorka muxuu iga caawin karaa colorka wuxuu ka caawin karaa in kombiyuutarkaaga meeshu hadda light uu ka yahay hadda waxa halkaysaa halkan inay tahay cadaan balse waxa dhici karta inaad u baahan tahay black dadka badanaa black waxay ugu baahan yihiin markaad inta badan kombiyuutarkaad isticmaalayso waxaad u baahan tahay kombiyuutarkaaga inaad ka dhigato dark mode kaas oo ka caawinaya inaad kombiyuutarkaaga awood u leedahay saacado badan inaad isticmaasho waxaa dhici karta inuusan joyce-kaaga ahayn balse anaga waxaan ugu talagalnay dadka leh joyce-kaan anaga leenahay oo kale inay kombiyuutarka ka dhigtaan black qaabkan ayaad ugu dhigi kartaa si aad ugu dhigato qaybtan kore waxaad halkan ku arkaysaa choice your colorka halkaana ayaa tigtaana furaysaa oo qaybtaana custom ayuu inoo saaran yahay waxaan ka dooranaynaa dark haddii aad ka doorato light waxaad arkaysaa taskbarka qaybtan hoose automatically inay isla wada noqonayaan cadaan aan ku bilaawno light markii aan dooran waxaad arkaysaa taskbarkaaga inuu noqday light waxaa dhici karta operating systemkaaga inuusan lahayn fadlan iska hubi inuu operating systemka kugu jiro inuu yahay 19
2009 kaasoo soo baxay bisha aan hadda duubeyno 5/5/2020 oo ah 2020 Janaayo 25keeda. Okay, anaga waxaan dooranaynaa dark waayo aniga waxaan jeclahay always inuu computerkayga ii ahaado dark. dark markii aad doorato waxaad arkaysaa computerkaaga xoogeer inaa culays dareemaysid balse computerkaaga oo idil inuu inoo noqonayo black. Okay, hoos ayaan soo aadaynaa. halkan waxaad ku arkaysaa inuu tigta inoo saaran yahay blue kana inoo saaran yahay automatically muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa halkan waxaad ka arkaysaa inuu yahay blue. sideen ku ogaan karnaa blue inuu yahay waxaan ku ogaan karnaa markii aan click ku siirno start menu-ga waxaad arkaysaa icons-ka qaarkood inaad ku arkaysid inuu yahay blue. si aad ugu dhigato black waxaad u baahan tahay inaad choice gareysato black adigoo colorka ka dhaafayo inaad choice gareysato midka ah automatic pick karey mid automatic balse anaga waxaan dooranaynaa midka caadiga ah waayo aniga halkan badanaa ma doorto waayo kan wuxuu la shaqeynayaa desktop-kaaga background-ka kuu saaran haddii uu white yahay white ayuu kuu noqonayaa haddii uu blue yahayna blue balse aniga waxaan jeclahay always inaan saarto dark midkaana colorkiisa oo halkaana oo dark lagu magacaabo balse storm ay ku magacaabaan I don't know where they call balse aniga ahaan waxaan aad u jeclahay inaan doorto dark. Okay, hoos ayaan u soo laabanaynaa. Okay, kan ayaan wax yar yareynaynaa si aan u aragno waxyaalaha aan anaga sharxayno. Okay, halkan waxaad ku arkaysaa startiga sidoo kale taskbar-ka iyo sidoo kale action center-ka. haddii aan click siiyo ama aan tigta doorto waxaad arkaysaa halkan inay isbedelayso colorka. si fiican u fiiri waxaad arkaysaa inuu caadi yahay. markaan click siiyo waxaad arkaysaa halkan inuu isbedelayo colorka. sidoo kale title bar-ka wuxuu inoo qabanayaa hadda frame-kan hadda arkaysid shaashada inoo dooran haddii aan tigta saaro waxaad arkaysaa inuu kusoo darsamayo meesha ugu dambeysa ee falaarta aad arkaysid labada gees u kala bixayso inuu kusoo darayo stroke kaasoo inta badan dadka ay u yaqaanaan Photoshop-ka markay isticmaalayaan. stroke waxaa la yiraahdaa farta marka aad qortid geeskiisa waxaad ka arkaysaa riigmo yar oo cadaan ah. marka cadaan qasab maahan buluuga ka dhigan kartaa jaala ka dhigan kartaa kafeeya ka dhigan kartaa wixii markaas adiga choice-kaaga ah. balse hadda always wuxuu saarayaa maadaama black uu yahay black kama dhigi karo sababtoo ah black frame ma ka soo dulbixi karo. so waxaan u baahanayaa marka inaan saarno title bar oo ah midka white-ka. automatically waxaa arkaysaa inuu halkan inoogu sameeyo white. haddii aan ka qaadno waxaad arkaysaa inuu ka baxay. haddii aan saarnana waxaad arkaysaa inuu inoo saarmay geeskan stroke oo ah dhinaca white-ka. waxaa halkan inoogu dhan qaybta ah coloriska. waxaa inoo soo haray qaybtan ah lock screen-ka. lock screen-ka aan weynaysano shaashada. lock screen-ka halkaana wuxuu inoo saaran yahay Windows Spotlight. waa maxay Windows Spotlight? Windows Spotlight waxaa dhici karta computerkaaga markaad lock ku xirtid oo kale inuu soo baxayo wallpaper. haddana markaad lock mar labaad aad ku celisid waxaa arkaysaa another wallpaper. halkan waaye meesha iska bedelayso inuu mar walba wallpaper-ka uu isbedelo kaasoo si toos ah ugu xiran Microsoft Store-ka. wuxuu si toos ah ugu raadinayaa halkan balse anaga ma rabno oo waxaan rabnaa inaan saarano screen loggeena wallpaper anaga diyaarsanin. macquul inaadan diyaarsanin balse isku day mid adiga ku gaara inaad diyaarsato si aad u hesho features cusub. so waxaan furaynaa Windows-ka halkaana kadibna waxaan ka dooranaynaa picture markaan ka doorano maxay noo soo baxayo waxyaalihii badnaa markaad lock screen-ka aad ku xiraysay midba midkii kale uu dooranayo balse anaga waxaan rabnaa inaan intaan mid kamid aanan dooranin oo aan soo baxsano midkan anaga diyaarsan. si aan u soo baxsano halkan waxa inoo yaala pros-ka aad kale ku siinaysaa. pros-ka marka aad kale ku siiso waxa ku soo furmaayo shaashad ama dialog box-kaas oo aad ka dooranaysid file-ka destination-ka uu ku yaalay. waxaan furaynaa my computer. waxaan u maleynayaa inuu inoo yaalay local C kadibna inoo bixinay wallpaper. anaga waxa halkan inoo yaalay inay inoogu qoran tahay wallpaper lock screen. kadibna waxaan leenahay waan dooranaynaa kadibna waxaan leenahay choice. awood waad u leedahay double click inaad siiso si aad u choice gareysato. waxaad arkaysaa marka hadda loggayga inuu isbedelay. haddii aad computerka demiso computerkaagan uu kugu xiran yahay lock screen waxaad arkaysaa lock screen-ka aad saaratay inaad halkan uu kaaga soo baxayo. sidoo kale halkan waxaad ku arkaysaa markuu computerka lock screen kugu jiro inaad ka arki kartid tusaale ahaan haddii Gmail wax lagugu soo diray ama calendarka aad wax ku save gareysatay ama Skype ay ku taala fariin. awood waad u leedahay inaad wax ku soo darsato. waxaad leedahay halkan ayaad kale ku siinaysaa. click markaa ku siiso mid alaale midkii aad u baahan tahay ayaad choice gareysan kartaa balse anaga waxaan choice gareysanaynaa messaging kaas oo inta badan iga caawinayo
inaan mobilkayga Android-ka aan ku xiriiri karo mobilkayga. Insha Allah casharada soo socdo Windows 10 featureskiisa ayaan ku qaadan doonaa. halkan waxay inoogu dhan qaybta ah midkan dhinaca lock screen-ka. kuwaan oo dhan kortaan iyo kuwaan oo dhan uma baahnid, sidiisa ayaan ku dhaafaynaa. waxa inoo soo haray halkan qaybta themeska. themes waa midka kaliya ee computerkaaga ku bedela colorkiisa, kaasoo si toos ah ugu xirmaayo Microsoft Store. so marka anaga hadda waxa inoo choice gareysan intaan mid kamid ah. marka waxa dhici karto intaan mid kamid ah hadii ay dhacdo inuu kugu yaraado, waxa dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay get more themes. kaliya dad ku siisid si automatically wuxuu u furayaa Microsoft Store-ka, kadibna wuxuu si toos ah ku geynayaa Windows theme adigoo aad kala soo degaysid theme walba themekii aad markaas ugu baahan tahay. so anaga uma baahnin, waayo waxaan rabaa theme-kan aniga doortay ee balaaga ah in aan choice gareysano. waxaan rabaa hal mar inaan dib u laabto, aan tago qaybta ah coloriska. coloriska markii aan dooranay oo aan ka dooranay black, waxaad arkaysaa calaamadda start menu-ga in uu inoo noqday dark. waayo haddii aan click siiyo, haday wuxuu inoo ahaa blue, balse hadda wuxuu inoo noqday dhammaantooda dark. halaas waan ka tagay, raali noqda. so aan u soo laabanay qaybta themeska, waayo halkan ayaan ka arkay, kadib ayaan soo xasuustay inaanan cashirka ku dirin. okay, waxa halkan inoo yaala save. save hadda waad save gareysan kartaa, waayo thumbnails-yadan waa waxyaalo la soo diyaariyay kadibna la save gareeyay. balse adiga waxaad rabtaa mid adiga ku gaara inaad diyaarsato kadibna aad save gareysato. inta aadan save gareysanin, waxaad arkaysaa muuskan anaga isticmaalayno in uu yahay cursorkiisa ama calaamadda falaarta inuu yahay cadaan. si aad ugu dhigato black, waxaad u baahan tahay inaad bedesho mouse cursor. mouse cursor sidee ku bedeli kartaa? halkan waxa inoo yaalo mouse cursor ama calaamadda muuska ah, kadibna uu inoogu qoran yahay Windows default, kaasoo ah window default-ga ku yimaada computerka in uu isticmaalayo. click ayaad ku siinaysaa, wuxuu ku keenayaa dialog box. haddii ay dhacdo computerkaaga inuu baran yahay touchpad-ka ama wax noocaasa, waxa kuu soo baxayo dialog box-kan. ha ku wareerin, wax dhiba ma lahan. waxa ka dooranaysaa tabsyada badan ee qaybtan kore saaran, ayaa waxa ka dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay paint trace. paint trace-ka marka aad dooratid, qaybtan waxaad ka arkaysaa inuu ku qoran yahay scheme. scheme-ka ayaad ishiisa ayaad furaysaa, waxaad arkaysaa waxyaalo badan inay halkan ku jiraan. for example, haddii aan doorano midkan ugu hooseeyo, waxaad arkaysaa cursorkeyga inuu inoo noqon doono qaabkan, asigoo halkan kaaga tusaayo mid alaala midkii aad dooratid siduu u ekaan doono. balse anaga waxaan furaynaa halkan, waxaan ka dooranaynaa midkan ay ku qoran tahay Windows Black System Scheme. kan markii aan doorano, waxaan ogaanaynaa muuskeena inuu yahay thin, mid aad u yar. then qaababka iyo waxyaalaha uu noqon doonana sida halkan ku xusan ayaad ku arki doontaa. okay, aniga kan ayaan choice gareysanayaa, adiguna choice-kaaga adiga og. haddii aad jeceshahay midkan mid ka weyn, haddii aad jeceshahay waa kana waa dooran kartaa. midkan mid ka yar haddaad jeceshahayna waa kaas waa dooran kartaa. okay, kan ayaan dooranaynaa. halkaana waxaan u sameynaynaa shadow. shadowgaasoo inaga caawinayo haddii aan saaro hadda shadow, kadibna aan dhahno okay. muuskaaga haddii uu halkan taagan yahay, geesihiisa waxaad ka arkaysaa cadaan inuu soo koraayo, balse markii aad qaado aad dul geyso meel cadaan, waxaad arkaysaa cadaanka inuu ka baxayo oo inoo soo qoraayo kista madowga. kaasna waxa keenayo shadow meel walba oo la saaro muuskaaga inaad ka dhex arki karto. okay, halkan waxaa inoogu dhan qaybta themeska. uma baahnin fontska inaan taabano ama aan wax ka bedelno, waxaan si toos ah u aadaynaa qaybta start menu-ga. start menu-ga ayaad click ku siinaysaa. click marka aad ku siisid, waxa halkan ka arkaysaa waxyaalo badan. aan ugu horeysiiyo midka ugu horeeyo oo ay ku qoran tahay show more title on start menu. show more title marka halkan doorato, waxyaalo badan ayaad halkan ka arkaysaa. haddii aan on gareyno, waxaad arkaysaa tabsyadii badnaay ee hadda aniga aan isticmaalaynay in ay ku soo darsamayaan waxyaalo badan. tusaale ahaan, haddii aan dulgeeyo halkan waxaa arkaysaa inuu furmaayo. okay, kan koowaad sidiisa aan doorano, kan labaadna aan on ka dhigano, isna wax weyn ma ahan, kaasoo kuu sheegayo computerkaaga listigiisa inta ku jirto. middan kalena uu inoo sheegayo computerkaaga recent app-ka aad isticmaasho. recent waxaa la dhahaa, tusaale ahaan computerka ayaad waxaad ku shubata software, haddii uu ahaan lahaa VLC, Chrome ama wixii markaas aad u baahan tahay. mar alaala markaad ku shubto, automatically computerkaaga halkan ayaad ka arkaysaa waxa ugu dambeeyay ee aad ku shubata. waana kala halkan inoogu qoran yahay recent added, waxa ugu dambeeyay ee aad ku soo dartay. okay, halkan waxa inoogu qoran applicationska ugu badan ee aan isticmaalo. tusaale ahaan, haddii aan maanta hadda kiciyo After Effects aan xiro, mar labaad haddana After Effects aan kiciyo aan xiro, ama Photoshop aan kiciyo ama Chrome aan kiciyo, markii aan furo start menu-ga
oo aan kana on ka dhigto automatically waxa igu dambeeyay aan kiciyay halkan ayuu inoo soo galaya tusaale ahaan hadda markaan show most used markaan on ka dhigo oo aan start menu ugu furo waxa arkaysaa halkan inuu inoogu soo baxay show used waxa halkan inoogu cad Adobe Audition oo ah midkaan codka ku qurxino inuu halkan inoogu midka ugu dambeeyay aan kicinay inuu halkan inoo yaalo Camtasia aan ku duubaynay computerkeena inuu halkan inoo yaalo Microsoft Edge-ka iyadoo hadda kadib aan qaadan doono cashirkiisa inuu halkan inoo yaalo sidoo kalena settings inuu halkan inoo waxyaalihii aan kicinayo dhan halkan hadii file kale hadda aan kicino automatically qaybta ugu koreyso ayuu tagayaa okay intaan sidan ayuu inoogu dhan yahay waxa inoo soo haray halkan ay ku qoran tahay start menu full screen hadda waxaad arkaysaa start menu markaan click siiyo inuu yeelanayo half yar adigoo shaashada aad ugu wada jeedid inuu half yar kaaga soo bixinayo balse hadii aan dhaho on ayaan ka dhigayaa kadibna aan kiciyo start menu waxaad arkaysaa shaashadii oo dhan inay wada qaadatay full screen-ki so qof walba choice-ka adiga iska leh balse aniga choice-kayga ma ahan oo waxaan leeyahay off okay start menu marka aan kicino halkan waxaad ku arkaysaa waxyaalo badan inuu inoo yaalo sida 1 2 3 4 5 kaasoo ah powerkey settings pictures iyo documents waa halkan markii aan doorano si fiican aan ku fahansiiyo qaybtan hoose waxa ku qoran folderkii aad u baahan tahay inuu start menu kaaga soo baxo Joyce Gray ama doorbid click markaad ku siisid waxa ku arkaysaa waxyaalo badan inuu inta hadda tigta saaran ee on ka ah waa inta hadda halkan ay inoo saaran yahay tusaale ahaan file explorer halkan hadii aan furno wax file explorer la dhaho inooma yaalo for example file explorer ayaan on ka dhigay start menu ayaan furay waxa arkaysaa file explorer-ka inuu inoo soo galay halkan marka Joyce-ka adiga iska leh laakiin aniga waxaan jeclahay dhamaantooda inaan on ka dhigo si start menu-ga markaan click u siiyo aan u arko features aad u qurux badan computerkaaga oo u noqdo shay aad u qurux badan okay waxa leedahay back halkan waxa inoogu dhan qaybta ah start menu hadda waxa inoo soo haray qaybta ah taskbar kaasoo lagu magacaabo meesha ugu hooseyso ee computerkaaga ah click ayaad ku siinaysaa asigana wuxuu wataa waxyaalo badan oo laga rabo in wax lagu daro waxna laga rabo in off laga dhigo waxa ugu horeeya midka ugu horeysa ay ku qoran tahay lock the taskbar lock the taskbar muxuu qabanayaa hadda hadii aan lock taskbar-ka aan dul tago aan rabo inaan kor geeyo ma geyn karo sababtaan u geyn karin waxay tahay halkan ayaa on ah sidoo kale adigoo halkan taagan hadaad tiraahdo right click kadibna aad tigta ka qaado halkan ay ku qoran tahay lock oo xir hadii aan tigta ka qaado tusaale ahaan halkan off dheh qaybtan hoose ee taskbar-ka awood waxaan u leeyahay inaan qaadi karo oo aan geeni karo kor waxaad arkaysaa inuu aaday kor awoodna aan u leeyahay inaan soo qaado hoos aan geyn karo qaybta hoose awood aan u leeyahay inaan qaado geeyo dhinaca midig aad arkayso inuu dhinaca midig aaday aan awood u leeyahay inaan geeyo dhinaca bidix uu aaday dhinaca bidix aan awood u leeyahay inaan soo qaado hoostan aan geeyo booskii aan markaas u baahanahay sidoo kale markii aan geeyana aan awood u leeyahay in aan dhaho meeshaas ku xir okay waxa kale awood aad u leedahay intuu loo gareysneen taskbar-kaaga inaad qaybta hoose taskbar-kaaga aad weyneyn karto aadna yareyn karto waxa dhici karto dadka badankooda inay yaqaaneen dadka badankoodana aysan aad u aqoonin soo ani waxaan jeclahay in loo gareeyo sidiisana uu ii ahaado waayo waxa dhici karta si accident ah inuu muuska kaaga raaco meel kale uu ka aado qaybtan hoose qaybtan ku xigto waa inuu taskbar-kaaga hiding gareeyo dib ayaan u soo laaban doonaa halkiisa ha inoo yaalo okay sidoo kale kana anaga badana ma isticmaaleyno waxa loogu talagalay laptop-yada screen touch-ka hadii ay dhacdo laptop-kaaga inuu screen touch yahay oo aad dhibsanaysid inaad isticmaashid sida Windows-ka caadiga waxaad awood u leedahay computerkaaga inaad u bedeshato aad tablet oo kale sida tablet qofkii tablet isticmaala ayaa aad u fahmi karo waa shay oo tablet waxa la yiraahdaa mobilada Android-ka oo kale ama iPhone-ada ama telefoonada iPad-ka oo kale inaad u isticmaali karto operating system-kaaga ama computerkaaga marka anaga sidiisoo kale uma baahnid sidiisa ayaan ku dhaafaynaa kan kaliya ayaan quseeyo balse waan u soo laabanaynaa halkan waxa inoo yaalo inuu inoogu qoran yahay use small taskbar portal halkan waxaad arkaysaa inuu waxyaalo badan inoo yaalo balse ay tahay wax aad u waaweyn tusaale ahaan maanta markii aan raba halkan inaan ku sameesto dhowr shortcut awood uma lihi sababtoo ah markaan kan lixaad ama kan toddobaad ama kan sagaalaad marka aan maraayo automatically waxaad arkaysaa inuu taskbar-ka iga buuxsamay
oo hadhowna aan u baahanahay inaan another taskbar kala abuurto balse halkan ayaad awood u leedahay inaad taskbaryada hadda kugu jiro in ka badan aad markaas gasho karto si aad u gashato waxaad leedahay small igaga dhig waxaad arkaysaa inuu noqday shay yar oo tiny ah computerkaagan oo noqday computer aad u qurxoon macquul inuusan adiga kula qurxoonayn laakiin aniga ahaan joyskeyga waa sida tan ee hadda shaashada kaaga muuqata okay waxa inoo soo haray marka qaybtan ah USB okay kan muxuu ii qabtaa USB kan wuxuu ii qabtaa tusaale ahaan mouse-ka aad hadda isticmaalayso haddii aan qaado aan dul geeyo meesha ugu hooseysa ee gacantaada midig ee taskbar-ka ah ee qaybta ah notification-ka dhinaciisa haddii aan si fiican u fiirisid waxaa yaala calaamad yar oo icon ah dadka qaarkooda badanaa si fiican uma fiiriyaan balse waxaad arkaysaa icon yar inuu inoo yaalo iconkaas haddii aan hadda muuskeyga dul saaraan waxba taabanin computerkeyga wax animation uma sameynayo waxaa loogu talagalay tusaale ahaan waxaad diidan tahay qof inuu ogaado waxaad adiga isticmaalayso adigoon aad ogeyn tusaale ahaan fail ayaad fiirsanaysaa ama movie ayaad fiirsanaysaa waxaad rabtaa marka wax alaala waxaad fiirsanaysid qof markii uu soo galo inuu ogaado waxaad adiga fiirsanaysid waayo way kugu adkaanaysaa in aad computerkaaga aad minimize dhahdo way kugu adkaanaysaa kaliya waxaad u baahan tahay inaad taabato calaamada window iyo D inaad taabato automatically si uu taga desktop-kaaga sidoo kale waxaad awood u leedahay muuskaaga inaad qaado oo aad geyso qaybta ugu hooseyso click aad ku siiso isla markiina waxaad arkaysaa inuu aaday desktop-kaaga haddana haddaan mar kale click ku siiyo iyadoo muuskeeda meesha uu ii saaran yahay waxaad arkaysaa shaashadii ugu dambeysay ii kacsaneyd inuu dib iigu soo kiciyo okay haddii aan click siiyo haddii aan on ka dhigo maxaa dhacaya haddii aad on ka dhigtid waxaa dhacaya meeshii hadda markaan dul tagnay qaybta hoose taskbar-ka markaan click ku siina kaliya ayay ahayd inuu arko desktop-ka balse markaan waxaad awood u leedahay adigoo aadan click siinin markii aan dul taga halkan waxaad arkaysaa in uu desktop-ka aad arkaysid haddii aan ka soo qaadana waxaad arkaysaa in uu computerkaaga ku soo laabtay booskii markaas ku kacsanayo for example waxaan kicinaynaa fail kaasoo ah aan ka soo qaadano fail yar oo aad muhiim ah tusaale ahaan notepad-ka markuu sida tan kugu kacsan yahay haddii aan dhaho muuskeyga ayaan qaadayaa waxaan dul geynayaa qaybtan anigoon click siinin waxaa arkaysaa computerkaaga inuu tagay desktop-kaaga balse aad ku arkaysid shay yar oo shadow camana inuu kasoo dulbaxayo kaasna waxaa lagu magacaabaa peak micnaha I don't know qaab lagu fasiro balse kasoo dulbixi ayuu ani ahaan ila noqon karaa maybe haddii aad qaab kale loo fasiro aad u fahansan tahay fadlan muuqaalka aad daawanaysid hoostiisa commentiga inoogu soo xis adigoo aad u mahadsan okay waxaan filayaa asna inaad fahantay okay why aan kan ugu tagay marka tusaale ahaan waxaa dhici karta computerka aad isticmaalaysid resolutionkiisa inuu yahay 1766 lagu dhuftay 768 inay saas tahan qiyaasa waxaad arkaysaa markaa Premiere Pro aad isticmaalaysid okay inuu timeline-kaaga weynaanayo waxaa kuu dheer markaad shortcut aad abuuranaysid in aadan awood u lahayn inaad okay tiraahdo waayo okay-ga ayaa wuxuu dhexgalayaa qaybtan start menu-ga gadaashiisa ayuu dhexgalaya way adkaanaysaa marka inaad click siisid waxay danta kugu kalifaysaa marka inaad kan qabatid oo aad hiding garaysid balse waxaa kaaga fudud inaad kan on saarato automatically waxaad arkaysaa qaybta hoose inuu isqariyay balse muuska markaad dul tagto waxaad arkaysaa inuu soo baxayo muuska markii aad ka qaadana waxaad arkaysaa inuu qarsamayo marka waxaa dhici karta inuu sidan tan joyskaaga ahayn balse aniga ahaanteeda joyskeyga waa sida tan waxaan u malaynayaa marka inaan qaybtan ka dhamaanay okay waxaan u laabanaynaa marka qaybta themeska ah waayo waxaan rabnaa themeskii ama waxyaalihii markaas aan soo qabsanay oo dhan inuu inoo save gareeyo sidoo inoogu save gareyn karaa waxyaalihii oo dhan waa soo qabanay hooshii oo dhan waa aan dhameynay kadib waxaad leedahay halkan waxaad ku arkaysaa save theme click ayaad ku siinaysaa kadibna waxaad u baxsanaysaa magacii aad markaas aad u baahan tahay tusaale ahaan waxaad arkaysaa marka inaadan marka qaar aadan ku qorin karin magac wax weyn ma ahan close garay markaad close garaysid right click da ka bacdi mar labaad kadib mar labaad dib u soo dooro personalize kadib waxaad dul imaanaysaa meeshii hadda ahaa waxba kaama qasmin wax walba sidiisa ayay kuu tahay kadib waxaad ku laabanaysaa themes kadib ayaad leedahay save garay aniga hadda waxaan ku qoranaynaa style 1 kadibna waxaan leenahay save isla markii waxaad arkaysaa in uu qaybteena ee themesyadii operating systemka isticmaalaya mid kamid inuu noogu soo diro
inoona sheegayo inaan bedelnay hal sawir sidoo kalena aan bedelnay cursorka oo ah midka mouse-ka ah. Okay, halkan sidiis ayaan ku dhaafaynaa. Okay, sidee baan ku ogaan karaa marka computerkayga shaashadiisa inuu yahay 16:33 iyo inuu yahay 1920x1080? waxaad ku ogaan kartaa desktopka adigoo joogtid ayaad leedahay right click kadibna waxaad dooranaysaa display setting. waxaa ku soo baxaya shaashad kadibna waxaad ka arkaysaa halkan inay inoogu qoran tahay display resolution. display resolutionka ayaad isha furaysaa, waxaad arkaysaa marka waxyaalo badan inay halkan inoo yaalaan. waxay ku xiran tahay marka resolutionka aad markaas adi isticmaalayso. haddii ay dhacdo inuu computerkaaga built-inkiisa uu yahay 1366 lagu dhuftay 768, awood uma lihid in aad increase ku samaysid ama aad badisid aad geysid markaas midkii markaas aad u baahan tahay aad is leedahay aleelahi ha kuu noqdo. waxaan u malaynayaa hadda tusaale ahaan 1920x1080 adigoo joogo kombiyuutarada qaar markaad tagtid right click markaad tiraadid kadibna aad dooratid Intel graphic setting, waxaad awood u leedahay kombiyuutarada qaar ama displayada qaar inaad awood u leedahay inaad shaashada aad ku darsan karto resolutionkii markaas aad u baahan tahay. for example halkan waxaa ku qoran display, click ayaan ku siinayna. waxaa dhici karta marka aniga inaan isku display ahayn, wax weyn ma ahan, is okay. sida anigu isticmaalaya qasab ma inuu adigu kugu shaqeeyo, balse waxaa qasab ah inaad fahantid wax basic ah. halkan hoose waxaad ku arkaysaa inuu kugu qoran yahay custom resolution. custom resolutionka ayaa dooranaysa, balse waxaa muhiim ah intaadan custom resolutionka aadan dooranin, waxaa muhiim ah inaad ogaan kartid computerkaaga refresh rate-ka uu u baahan yahay. hadda aniga computerkayga refresh rate-kiisa waa 60, balse markaan ku xiriiriyo dhalo wuxuu noqonayaa 60 pi ayuu noqonayaa. okay, waxaan aadaynaa qaybta customize-ka. halkan wuxuu kaaga cadaynayaa download box-kan computerkaaga inuusan awood u lahayn wax uusan xamili karin ama chipsetkiisa ka baxsan, in uusan awood u lahayn inuu kugu daro. okay ayaan leenahay ama yes ayaan leenahay. then halkan waxaa ku qoranaysaa shaashadii markaas aad u baahan tahay, tusaale ahaan 1920 qaybta kore geli, widthka headkana geli 1080. okay, rate-ka markaas aad u baahan tahay 60 ayaan dhahaynaa, kadib waan save gareynaynaa. sideen ku save gareyn karnaa? halkan waxaad ka arkaysaa add inuu inoogu qoran yahay. add-ka ayaad kali ku siinaysaa, kadib wuxuu ku leeyahay mubta inaad failkan save gareynaysid. okay, yes ayaad iska leedahay. marka aniga hadda ma rabo, waayo resolutionkayga asal ayaaba ahba in uu computerkayga uu ii noqdo, waayo halkan ayuu hadhow soo gelayaa uu ku leeyahay custom resolution ayaa la sameeyey, awood ma u leedahay inaad save garaysato. marka aniga kuwayga built-inkaba ayaa ahba intaan ilaa iyo midka ugu dambeyso ay ku qoran tahay 1920x1080. okay, waxaan u malaynayaa inaad fahantay qaybta displayga ah. okay, aan iska xirno qaybta settingska. okay, halkan waxaa inoo yaala marka applicationsyadii ee aad markaas u baahan tahay. tusaale ahaan waxaan u baahanahay marka applicationskan mar walba waxaad ogaataa desktopkaaga damoor u yaala application, waxaad ogaataa computerkaaga inuu saameyn u leeyahay culeys. waayo hadda anaga waxaan isticmaalaynaa SSD. dadka badanaa waxayna soo weydiiyeen sidee lagu fahmi karaa SSD, sideese lagu fahmi karaa HDD. hadda markii aan furno my computer waxaa halkan ku arkaysaa inuu 1 terabyte halkan inoogu yaalo 390 GB iyo midkan kale 2 terabyte ka ah. okay, sideen ku ogaan karnaa makana SSD ma ogaan karno. si aad u ogaatid, markii aad furto my computer halkaana right click ayaad leedahay, kadibna waxaad dooranaysaa personalize. markii aad doorato qaybtan kore waxaad ka dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay device manager ayaad click ku siinaysaa. click marka aad ku siisid waxaa ku soo furmaayo device manager, kaasoo ah meesha computerka updateska loogu diro. waxaan u malaynayaa cashir inaan kasoo diyaarinay muuqaalada dib ugu laabo si aad u baratid computerkaaga sidaad ugu shuban lahayd operating systemkii markaas aad u baahan tahay. okay, qaybtan waxaa halkan ka arkaysaa inuu inoogu qoran yahay disk drive. marka disk drive-ka ayaa double click siinaysaa, waxaad arkaysaa marka harddiskiyada computerkaaga ku xiran all of them halkan ayuu soo dhigayaa. halkan waxaa ku qoran Samsung SSD. hadiiba mar computerkaaga uu yahay SSD, waxaad halkan ku arkaysaa in uu noogu soo qoraayo SSD. hadduusan SSD ahayn sidaana noqonaysaa. okay, kan hadda waa SSD, waa hard diskiga caadiga iyo midka externalka ee USB-ga. marka everything ee computerkaaga aad soo gelisid waxaad ogaataa
inuu halkan kaaga sheegayo inuu USB yahay iyo inuu mid internal yahay. hadduu internal yahay wax internal kuma soo qorayo balse wuxuu ku soo qorayaa midka caadiga. marka halkan waa mid 1 terabyte midkaana waa midka 2 terabyte ka waa sida halkan aad uga arkaysay. halkan midkan waa midkan okay midkan SSD gana waa midkan. marka inkastoo hadartan aan ugu talagalnay inaan ku fahansiino qaabka lagu fahmi karo SSD ga iyo qaabka lagu fahmi karo HDD ga. okay desktop kaaga marka aan u soo laabano computerkaaga mar walba waxaad ogaataa inaad u baahan tahay inaad wax alaala wixii muhiima aad geysato diida ama hard disk external. waayo waxaa dhici karta computerkaaga inuu hadhow awood u yeelan waayo markii aad dimiso inuu dib dhaqsi kugu soo kici waayo ama markii aad dimiso inay dhacdo inuu cabaar kadib uu damo. sidoo kale waxaa dhici karta application marka aad furto inaad baxdo musqusha tagto ama kafee soo cabto dib marka u soo laabato kadib uu kaco programkaaga. taasna waxa keena waxa waaye the more desktopkaaga ama uu ka buuxo desktopka documentiska downloadska musica iyo pictureka iyo videoga intaanoo dhan waxay awood u leeyihiin inay ka soo kacaan local C-daada. marka ha isdhihin desktopka wax ii yaala local C-deeda mas-uulka ma aha. ha dhihin desktopkaaga wuxuu la shaqeeyaa my video my picture documents downloads picture iyo midkan labadan kale oo ah 3D option iyo midkan kale oo ah desktopkaaga caadiga ah. marka isku day daatadii aad u baahan tahay inay kugu jirto local D. insha Allah waxaan kasoo diyaarin doonaa 10 haddii aan rabo. hadda aniga badanaa waxaan sameeyaa way igu adkaanaysaa inaan tago local D kadibna waxaa ii samaysan folders ama organize. waxaan u maleynayaa inaan hore usoo aragnay. organize wuxuu kaa caawinayaa computerkaaga in aad u samaysan kartid feelashii aad u baahan tahay. tusaale ahaan video picture inaad picture gelin karto music inaad music gelin karto. ha isku dayin computerkaaga picture inaad music geysid music inaad picture geysid xogar waxaa dhici karto confusing. hana isku dayin desktopkaaga in aad waxyaalo badan ka buuxiso waayo sometimes waxaa arkaysaa computerada qaar xataa inaad right click refresh meelaad ku dhahdo aad weynaysid. marka mar walba isku day computerkaaga inuu noqdo computer organize garaysan mar walbana difaaciisa uu yahay difaacaad adiga hubto oo aad isdhihi karto computerkayga mar walba uu ii ilaashan yahay insha Allah. okay su'aasha meesha jirtaa waxay tahay marka haddii anaga hadda waxaan rabnaa waxa halkan inoo saaran oo dhan inaan bixino. okay wuxuu dadka isweydiiyaan marka haddii aan inta ii yaala aan bixiyo hadhow inteen ka doonanaa marka ilaan qofkan wuxuu rabaa inuu halkan automatical desktop ka soo joogo midka u baahan yahay la double click siiyo. no shortcut ayaa jiro. shortcutkaas oo ah failkii aad u baahan tahay inaad kiciso right click ayaad leedahay. right click markaad tiraahdo wuxuu kuu keenayaa waxyaalo badan. waxaad ka dooranaysaa marka midkan ay ku qoran tahay taski pin to taski bar. click markaan ku siiyo haddii aan qaybteeda muuska hoos geeyo waxaa arkaysaa inuu halkan inoogu soo darsamay taski barka midka ah title broga. okay waxaan sameynaynaa marka kanaan soo qaadaynaa right click aan leenahay halkan ayaan dooranaynaa. waxaa arkaysaa halkan sidoo kale awood waxaa u leedahay inaad soo qaado drop and drop inta keento aad ku duldeyso labadaba waad samayn kartaa. marka waxay ku xiran tahay qaabkaad adiga u baahan tahay. aan iska bixina kan because inta badan ma isticmaalo. waxaan rabaa inaan 10 oo khusaydada Filmora soo weydiiyay laan dartooda ayaan ugu shubnay. okay application walba aad u baahan tahay inaad soo qaado halkan waad saarin kartaa. so marka aniga hadda labadan application mostly aadan u isticmaalaa. qabo intaan oo dhan highlight garay ka qaad recycle binka adigoo riixayo controlga kili ku sii waxaad u malaysaa intaan oo dhan inuu highlight inoo saaran yahay kadib drop kili ku sii jiid gay recycle binka ku dulday right click dhe empty dhe marka waxaa arkaysaa marka hadda computerkaaga inuu yahay computer fresh ah. okay second waxaa ii xiga marka waxaa dhici karta inuu application halkan iigu jirin oo aan u baahanahay inaan application halkan soo gashto. very simple kaliya kici start menuga kadibna qor programkii aad u baahan tahay. tusaale ahaan hadda waxaa inoo saaran halkan WhatsApp right click ayaad leedahay kadibna waxaad leedahay more kadibna waxaad ka dooranaysaa taski pin to taski bar. automatically waxaad arkaysaa inuu halkan inoo soo galay. okay sidoo kale haddii ay dhacdo inaadan isticmaaleynin mouse ama touchpadkaaga sidee baad start menuga aad ugu raadin kartaa inaad kala soo baxdo fail. waxaa lagu magacaabaa quick look. waxaad taabanaysaa calaamadda windowga adigoo haayo ayaad Q taabanaysaa waxaa kuu soo furmaya dialog box kadibna waxaad qoraysaa
programkii markaas aad u baahan tahay isla markiina waxaad arkaysaa inuu kuu soo baxayo programkii aad markaas qorato haddii aad u baahan tahay inaad qorato Premiere waxaad arkaysaa inuu kuu soo baxayo Premiere haddii aad qorato Photoshop waxaad arkaysaa inuu kuu soo baxayo Photoshop marka waxaan u maleysaa dadka badankooda inay aad ugu dhagan yihiin Windows 7 Windows 7ka waxaad ogaataa inuusan awood u lahayn waxyaalo badan oo markaas loo baahan yahay inuu kiciyo ugu dambeyn wixii aad raadinayso waa aad heshay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad inoo like garayso muuqaalka haddii aad tahay qof inagu cusub maxaa diiday inaad subscribe garaysato channelkeena sababtoo ah waanu kaaga mahadcelinaynaa hana iloobin inaad saarato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo markaas soo dhigno sidoo kale Pro Production waxa ay leedahay channel kaasoo ah barta Facebooka si aad u hesho macluumaad dheeri ah ama ku saleysan casharadeyna muuqaalka aad daawanaysid waxa ku xusan link kaasoo si toos ah ku geyn doona barta Facebooka haddii aad jeceshahayna inaad si toos ah ugu soo biirto groupkeena waxaanu leenahay WhatsApp group muuqaalka aad daawanaysid sidoo kale waxa ku xusan link kaasoo si toos ah ku geyn doono barta WhatsAppka ee WhatsApp groupka waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo iyo casharadeena xiga